Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan. Qisadan ayaa naga rabaa inaan noo sheekeeyo. Aniga waxaan ahaa macallin iskuul. Maanta waxaan inoo sheegayaa qisada igu dhacday. Waxaan ka shaqayn jiray iskuul weyn ayaa macallinka ahaa. Ardada ayaa waxaan bari jiray xisaabta. Ardada badanaa waxay ahaayeen kuwo aad u caajis badan oo mise jeclaan inay casharka qoraan. Aniga markasta waxaan ku dhihi jiray casharka qora. Badanaa mise qori jireen. Laakiin aniga badanaa ardada aad ayaa u jeclaa oo markasta mid kasta aan jeclaa. Markii dambe waxaan ku yiraahday aniga waxaad jeceshihiin inaad wax qoratiin mise inaad baashaashin imise jawaabin. Markii dambe waxay u soo dhacday imtixaan si u soo shaqeeyaan. Imtixaankii ayaa siiyay mid kasta imtixaan ayuu qaatay oo waa ka shaqeeyay. Waxay yiraahday markaa ka shaqeysiin waxa igi dhigtiin xafiiska ii dhig. Aniga markii dambe iskuulkii ardadii waa fasaxay oo guryahoodii aadeen. Aniga markii dambe xafiiskayga ayaa waxaan ka soo qaatay waraaqadii waana soo baxay oo waxaan imaaday dhanka iyo gurigayga. Gurigayga ayaa imaaday. Markii dambe waxaan imaaday xafiiskayga gurigayga ayuu dhex yaalay. Markii dambe waxaan bilaabay inaan waraaqadaha furfuro mid kasta su'aashuu ka shaqeeyay aan fiiriyo. Gabadhan xijaabka qabta su'aashii ka shaqeystay waxay noqotay su'aal khalad ah oo jawaabta way khaladay. Aniga waxaan ogaaday in ardada badankood iyo qaarkood dhaceen qaarkoodna baaseen. Aniga waxaan markaas kala sameeyay inay kuwii dhacay aan meel dhigo kuwii baasan aan meel dhigo. Waraaqadihii qaarkii su'aasha khaldan ku qoran aniga waa iska tuurtuuray. Markii dambe waxaa la gaaray haween anigana waa caajisay. Markaa aniga waxaa ii soo dhacay fariin oo fariintaas ayaa fiiriyay. Fariintaas waxay ahayd dhanka iyo hooyada iyo aabahay. Hooyada ayaa ii soo dirtay ma fiican tahay. Anigana waxaan ku dhahay haa waa fiicanahay. Snapchat-ka ayaa fariin igu soo diray oo aniga waxaas ilaahay yaa fariin kugu soo diray oo saaxiibka ayaa kugu soo diray Cabdiweli. Saas ayaa islahaa. Markii dambe waxaan Snapchat-ka ayaa soo dhex furay oo waxaan ka arkay wiilkan drag oo la dhaho inuu igu soo darsaday. Anigana waa aqbalay oo wiilkan wuxuu ii soo diray hay ma fiican tahay. Anigana iskuma wareerin oo iska daayay. Aniga markii dambe hawsheeda ayaan sii qabsaday. Markii dambe waan ka soo tagay oo cunteynayay. Fariin ayaa la ii soo diray dhanka Snapchat-ka. Snapchat-ka waa soo furay oo waan naxdintii ku weynayd. Waxaan arkay anoo cunto cunay in la isu waray. Aad ayaa u naxay. Waxaan israacday daaqada ama qofka ka suburay. Daaqada dhankeeda ayaan u soo orday oo daaqadii hoos ayaa fiiriyay. Waxaan arkay inay hoos ina joogin. Aniga markii dambe waa soo labistay oo guriga waxaa banaankiisa ayaa u soo baxay sida aan u arkay qofkii aniga isu waray. Guriga banaankiisa tartiib ayaan u soo soconay. Waan fiiriyay. Waxaan arkay inaysan ina joogin. Aniga waa naxay qofka ku soo yuu yahay aslaha. Markii dambe waa soo cararay. Ibaabkan xoog ayaa u xiray oo ibaabka dhan quful ayaa ku xiray. Markii dambe aniga xafiiskayga ayaa ku soo noqday. Waxaan is yiraahday ma ardada kugu ciyaarsa kuwa fasalka oo dhigtid casharka mid ugu dhimnaa ayaa jiray. Kaas ayaa ka shakiyay. Markii dambe waxaan is yiraahday ardada ayaa kugu ciyaaray oo kugu dheeldheelay ayaa islaha. Waa iska daayay markii dambe. Gabadhan la dhaho Fartuun ayaa marka ayadana imtixaankeena ku dhacday ayaa fiirinayay. Markii dambe aslaha waraaqada ayada waxay ku qortay su'aalo saxsan. Ardada intii kalena waxay ka baqayeen in imtixaanka ku dhacaan. Aniga laakiin badankood way ku dhaceen imtixaanka. Waxaa ku reeyay 2 qof kaliya imtixaanka ayaa ku baasay. Inta su'aalood saxaya 2 qof ayaa ku guuleystay imtixaanka. Aniga wiil ayaa arkay inuu imtixaanka qoray. Wax badan ayuu ku qorqoriyay oo wax khaldan ayuu ku qoray. Waa la yaab wiilkan waxa khaldan uu qoray. Markaas waxaan ilaahay muxuu ugu qoray waxaas. Wiil foodo badan ayaa ku soo qoray waxaan oo waa garwaay waxaan wuxuu u soo qoray. Aniga markii dambe waxayga ayaan iska akhristay oo kombiyuutarkayga ayaan ka shaqeystay oo marna waxba ayaa iska dhagdhagaysanayay oo marna waa iska nasanayay. Aniga waxaan ilaa hadda ka fikirayaa wiilka wuxuu ku qoray oo muxuu ugu qoray ayaan leeyahay. Waxaan ka fikirayaa sawirka la ii soo diray oo qofka soo iga qaada ayaa garan lahaay
oo qofka muxuu iga qaaday. Ani markii dambe sawirkii ayaa fiiriyay oo waxaan ogaaday wiilkan drug in uu qoran tahay ii soo diray sawirka. Markii dambe waxaa fiiriyay location-ka iyo inuu agteeda joogo ayaan fiirinayay. Agteeda ayuu joogay oo waxba kama fogeen. Gurigeyga iridiisa ayuu taagnaa. Anigu waan naxay markaan intaas arkay oo aad ayaan u naxay. oo haddana kombiyuutarka ayaa ka fiiriyay. Ardada markii ugu dambeysay kulliyad ka soo baxay way faraxsanaayeen oo aad ay u faraxsanaayeen. Qofkan ayaa garan waayay wuxuu yahay. Aniga ilaa hadda waxaan garan lahay sidoo cuntada iga qaaday. Waxaan ogaaday inuu daaqada galaasheeda soo istaagay. Markii dambe waxaan ku yiraahday orod guriga ii bax oo mar dambe guriga iridiisa kuma arki karo ayaa u diray. Markii dambe waxaan arkay inuu ninkii iga tagay uu agteeda joogin. Markii dambe wuxuu ii soo diray xayawaan ka tagayaa. Markii dambe waxaan arkay inuu iga tagay oo agtiisa isu joogin baa arkay. Markii dambe aniga waxaan ogaaday inuu ninkii iga tagay. Anoo daalan ayaan sariirteeda fuulay oo waan seexday. Subaxdii markii la gaaray aniga ardo dhan way qalqaylinayeen waxay lahaayeen maanta imtixaanka ku baasinaa. Anigu waa garan waayay. Markii dambe wuxuu igu dhahay macallin maanta imtixaanka ma ku baasnay. Waxaa ku dhahay hadhow ayaa arkaysiin. Markii aan u socday xafiiska dhankiisa waxaa la ii soo diray fariin oo fariintaasoo aniga waxaa la ii soo diray oo hurday habeenkii oo sawir laga qaaday. Anigu waan naxay markaan intaas arkay oo waxaa israaday qofka sawir iyo sawir ka qaaday oo gurigaaga u soo galay. Aad ayaa u naxay intaas markaa arkay. Haddana fariin ayuu ii soo raaciyay oo fariintaasoo ahayd adiga waa dhama doontaa goor dhow ayuu ii soo qoray. Aniga markaan intaas arkay waa qoslay oo waxaa iri kan waa doqon. Markii dambe saaxiibkay ayaa u soo orday oo ahaa magaciisa Cabdicasiis. Cabdicasiis oo ahaa ninka kombiyuutarka ku fiican oo iskuulkeena ka shaqeeya. Cabdicasiis ayaa waxaan ku yiraahday Cabdicasiisow nin baa maalin kasta wax ii soo qorqor wiil yiris ah. Markaas uu dhahay wiilkee way wiilkaas ah. Ani ma ogay qofku yahay. Habeenkii markii la gaaray waxaan go'ay saaxiibkay Cabdicasiis oo waxaan ku dhahay bilis wax arintaas ila xalay. Haye waayahay igu dhahay waxba ka baqin. Subaxdii markii la gaaray aniga ardada waxaan ku yiraahday mobilada hala keeno oo boxkan hala gurido. Qof kasta markuu boxka ku riday waan soo qaaday oo waxa uu keenay saaxiibkay Cabdicasiis. Cabdicasiis ayaa wixii fiiriyay oo qofka fariinta ii soo diray ayuu ka fiirinayay mobilada. Markii dambe Cabdicasiis ayaa imaan waxaan ku yiraahday meesha qofkii haa ayuu dhahay ee mobiladooda u celi. Markuu bareegi dhacay oo iskuulka laga baxayay ayaan siiyay mobiladooda. Markii dambe fariin ayaa la ii soo diray hanjabaad ah oo ah goordho adigu waa dhiman doontaa waqti dhow. Markii dambe waxaa la ii sheegay wiil aan u dhigi jiray oo magaciisa ahaa Cabdiqani. Maamulihi ayaa u tagnay wixii dhan ay u sheegnay. Maamulihina wuxuu wacay booliis. Booliiskii waxay fiiriyeen kombiyuutarkii. Markii dambe waxay xireen wiilkii la dhahay jiray Cabdiqani. wixii wax ii soo qori jiray wuxuu ahaa Cabdiqani oo wixii maanta imtixaanka wixii ku qoran waa asaga. Hadda markii la xiray anigu waa ka nastay. Waalidiinteeda ayaa waxay u sheegay. Maamulihina wuxuu dhahay waa fiican tahay maadaama intaas samaysay. Aad ayay u fiican tahay. Badanaa asxaabihi ayaa sheekada ugu sheekeyn jiray oo wixii ku dhacay. Ardada badanaa way caan jireen waxay dhihi jireen macallin xun ayaa tahay. Anigana maantaas natiijadooda ayaan soo siiyay waa ka soo tagay. Asxaabay maanta hadduu maxay ahayd dili lahaa cunigaas yar maxaa dhici lahaa. Wuxuu rabay inuu imtixaankayga wixii inuu qaato ayuu rabay. Saacadan saaxiibkay Cabdicasiis hadduu i badbaadin lahayn saacadan waan dhiman lahaa. Maamulahan u sheegi lahayn waa dhiman lahaa. Asxaabay waxaa sheekada ka fahantay commentiga nagu sheeg. Waa mahadsantihiin. Salaama 10K oo subscribe gaarsiiya.